السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارتا سودو هذا ومركله وبرنامج كله يو كيستا تي في ومالين تلاذا صدح توانكا بشمي لبدا كونشن يو لباتانكا برنامج كان مانتا إن شاء الله تعالى وحان ربنا إنا كل فقرو هشيسكا سومالي دا أي لغا شي دولة دا تركيكا كاس أوكو سابسان حقا باريتانكا يو قوديتانكا شدالكا وحان إن شاء الله تعالى aan nambarag u bedeli doonaa heshiiska ku salaysan percentage-ka oo sida la sheegay Soomaaliya ay leedahay 10% Turkigana uu leeyahay 90%. taas ayaan rabnaa nambar u bedelo anaga oo ka duulayna shirkii jaraa'id ay qabteen wasiirka Turkiga u qaabilsan petroolka iyo kan Soomaaliya u qaabilsan petroolka oo ay ku sheegeen in labadii block oo hadeer la baaray laga helay 20 bilyan oo fuusto oo saliid la suuq geyn karo ah markaan ku bilaabay haddii aad nagu cusub tahay don't forget to subscribe to the channel hadaa hore noola joogtay like and share the video shirki jaraa'id oo ay qabteen dowladda Turkiga wasiirka petroolka iyo dowladda Soomaaliya wasiirka petroolka ayaa waxa ay isla sheegeen isbuucii la soo dhaafay in 20 bilyan oo fuusto oo shidaal la suuq geyn karo laga helay dalka Soomaaliya especially labada block oo hadda ay baaritaanka ay ku sameeyeen waxa kale oo sheegeen in blogga saddexaadna ay rajaynayaan in wax fiican laga helo waxa marka waayadan dambe lisla dhaxmarayay sida uu u yahay heshiiska mid disproportionate ah oo aan isu qalmin marka la fiiriyo Turkiga oo qaadanayo 90% kheyraadka dhulka Soomaaliya ku jira in uu isaga xuquuq u yeeshay dowladda Soomaaliyana ay xaq u leedahay 10% marka haddii aan u rogno intaas Turkiga waa lagu cambaareeyay dad fara badanna way ku eedeeyeen dad badan oo Soomaali ana waxa ay ka sameeyeen falcelin arrinkaas markii uu soo shacbahay kadib markii baarlamaanka Turkiga uu ansixiyay heshiiska isaga ah iyaga ayaana soo bandhigay dowladda Soomaaliya ma aysan soo bandhigin keedii haddaba aan isku cabirna marka annaga oo ka duulayna 20 bilyan oo fuusto oo la helay waxaan shalay aan research ku sameeyay ama baaritaan aan ku sameeyay fuustada crude oil-ka ah saliidda ceyriin meeqa ayay joogtaa waxa ay ka joogtaa suuqyada shalay maanta ma aqaan waxay ka joogto laakiin badana average-ka waxay ku warwareegataa $61 so waxaan isku dhuftay 20 bilyan oo fuusto haddii $61 lagu dhufto maadaama heshiiska ay ku jirtay in shirkadda Turkiga ah ay lacagta fuulka ah ay ku suuq geysanayso waxeedana iyada ay u madax bannaan tahay so lacagta suuqa uu ka joogo gas oilka ayay ku gadaysaa so $61 waan soo yareeyay waliba gaaskaas wuxuu ahaa gaaska laga soo saaro Texas so $61 kan ugu hooseeyo ah minimumka markii aan ku dhuftay waxa ay soo baxday in lacag gaaraysa 1 trilyan 222 bilyan oo dollar in ay noqonayso 20kaas bilyan oo fuusto marka la fiiriyo 1 trillion 222 billion dollars ayaa ka soo bixi karta annaga oo aan wali u gudbin blogga saddexaad oo baaritaanka uu ku socdo iyo waxyaabaha kale oo laga heli karo dhulka ayaa waxaan ku koobnaanaynaa kaliya labadaas block oo ay heleen haddii maanta Turkiga ay dalooliyaan oo ay gaaskaas soo saaraan waxa ay noqonaysaa 20 billion barrels oo $61 lagu dhuftay 1 trillion 222 billion dollars marka su'aasha maxay noqonaysaa 90% lacagtaas maxay noqon doontaa Soomaalida se maxay yeelan doontaa ayagu se maxay qaadanayaan markii aan isku dhufanay ama aan kala jarrayba xisaabtaas waxa inoo soo baxday in 90% uu noqonayo 1 trillion 9.8 bilyan in uu Turkiga jeebka dambe uu ku ridan doono oo more than 1 trillion-ka waxaad ogtihiin inuu yahay 100 bilyan weeye marka lacag meeshan lacag yar ma taalo lacag culus baa taala laakiin 1 trillion 9.8 bilyan waxa qaadanayo Turkiga qaadanayo Soomaalida marka qarashaadkiina ay ku jiraan maxaa u soo haraya waxa u soo haraya $122 billion
so dalkeena annaga waxaan ka qaadanaynaa labada haddii hataa 20 bilyan oo fuusta keliya la soo saaro oo aan blogyada kale loo gudbin which iyaga naftooda ay xuquuq u leeyihiin boqolkiiba 90 maadaama heshiiska sidaas uu ahaa marka 1 trillion 9.8 bilyan waxaa qaadanayo Turkiga annaga waxaan qaadanaynaa 122 bilyan oo dollar so waxay u egtahay in iyaga ay iska leeyihiin gaaska oo dalkoodii laga soo saarayo annagana aan nahay qolyihii wax soo saarayay oo qaadanaya 122 bilyan hataa 50-50 maaha boqolkiiba 90 intaasay iyaga u noqotay annagana intaan ayay noo noqotay intaan weli waxaa kusii jirta waxaa 10% wax loo qaybinayaa 5% oo royalty ah iyo 5% oo ay isugu jiraan qarashaadkii iyo waxaas annaga naga go'ayaan ayaga kama go'ayaan waxa kale oo dealkan loogu sheegay in uusan ahayn deal fair ah oo dhexdhexaad ah sabab la xiriirta in lacagihii sida qaalibka ah shirkadaha marka gaaska ay wadan ka baarayaan ama heshiis ay galayaan laga hormarin jiray reer mudug ay u yaqaanaan xooqalqalinka in xooqalqalin aan laga qaadin shirkadda oo laga daayay taas oo ay ku micneeyeen kambaniya fara badan iyo wadamo badanba in ay tahay sheeko unusual ah aan hore u dhicin marka percentage-ka lidin sheegayay 90% Turkey 10% Soomaalida intaas ay ku leedahay intaas ayaa waxa loo si kala qaybinayaa 61 bilyan oo kale waxay noqonaysaa royalty 61 waxay noqonaysaa kulay qarashaadkii iyo waxaas ayaa kasii go'aayo oo billion dollars ah ayaan ka hadlaynaa so sidaas ayaan u kala leenahay percentage-kii lagu wareeray falcelintii faraha badneed ee ka timi I don't know if it's justified or not comment section-ka kusoo reeb ama commentiga kusoo qor haddii sida aad u aragto dealkaas Turkiga iyo Soomaalida dhexmaray inta uu soconayo ma aysan sheegin laakiin lacagtan waxay noqon doontaa bay yiraahdeen cost recovery in qarashkii naga galay aan ka soo ceshano so haddii waxa la helay hadda 20 bilyan oo fuusta ay noqoto 1 trillion 222 bilyan oo iyaga ay qaateen almost 1 trillion 98 bilyan ama 1 trillion iyo 200 oo bilyan ay qaateen intaas ma ku ekaan doontaa coostigii ama qarashaadkii ka galay oo markaa ka dambe Soomaalida ma xaq u yeelan doonto ma naqaano laakiin wixii fikirkaaga adiga nugula wadaag insha Allah ta'ala comment section-ka don't forget to like the video subscribe to the channel follow us on Facebook TikTok Instagram wherever aad ku aragto Kista TV insha Allah ta'ala nagu soo biir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh peace